ما شاء الله تبارك الله أيها هاي الشخص سيدا الشرف له أي أبدو سيسي على المرتي بطولة برنامجي هلكي نوغسي سعودونا مرة بعد أيام يا شمسة مرة بعد يا وعن رب إن أيسي حشمت يا ماموس له أي مركلة وسأل ويسأل ألقى مغير لول الرويلة iyadu maanta ka mid ah dadka la guddoonsiinayo maxaa la yidhahdaa abaalmarinta sababtana waxay noo faahfaahin doontaa shamsa oo mikrofoonka ku wareejiyo. Asalaamu calaykum mar kale dhammaan sharaf ayay ii tahay inaan maanta mikrofoonka kusoo dhaweeyo gabdhaha gabadha ugu jeclahay luul caraweelo kulmiye. وإذا لم يحصل عيال قلت اللول خارسة أشياء رول مدى مركي لك حمد عيال يعني رول مدى اللي بدأيين عربي لويك أكون في صدرة طابع عقل من جدو حاجة فلسة وهدايا لون هدليسي لكن لول يعني كان محاس برمي 2014 كيغاري أسكو برمي اسطنبول markii la sameynayay marka luul hadda aniga maaragtay shakhsiyan walaal ay tahay qofka adduunka ugu jecel ay tahay waxyaalo badan oo qabta ayadaan ku wareeji doona kole luul ayaa sheegi doonta laakiin haddii aan ka dhawaajiyo waxyaalaha ugu muhiimka ah ee luul loogu magacaabo halkan ma joogto qof dumareen u dagaasho aniga ahaan yani waa la yimid taas oo luul iyo raabico xag fadhisa ka karti badan kana ololeyn badan kana dhaqdhaqaaq badan ilaa xataa ay ka gaartaan heer aad isku daydaan luqadda la isticmaalo ee dumarka loo isticmaalo oo kamid ah barbaarinta carruurteeda in wax laga bedelo. Luul waa hooyo waxay baratay kalkaaliso Norway ay ku nooshahay Norway ay nooga imaatay kadib way sii takhasustay kadib waxay sii gashay heerka turjumaanimada waana qof oo social media ah waxaan leedahay social media queen oo yani arrimaha dumarka ka shaqeyso waxay ururo fara badan ayay member ka tahay waxyaalo badan way soo dhistay laakiin muddaan ka dhawaajiyo ururka ad xooga hadda ugu saartay waa ururka Somali Gender Equity Movement ama SGEM oo ay ka mid tahay founding motherska oo u ololeeya dumarka Soomaaliyeed inay xuquuq ku yeeshaan siyaasadda dalka oo yoolka markas isbedelaya laakiin aad ku bilowdeen 30% inay dumarku ay xaq u helaan in baarlamaanka ay galaan taasoo aad ku guuleysateen meelo fara badan sida luul sheegtay meesha isku kulmnay waxay ahayd Turkey markii la aasaasay ururka diasporada ayadoo ayadana boormadna ay ku tahay Norway ay u qaadaysan tahay anoon hadalkeeda ku dheereynin fadlan waxaan codka ku wareejinayaa luul kulmiye. شمس أنا أمها تصدقها مركورة شمس إلهي كل عماده ما مواليد سبب كلاته أدون كانت وحكة لو شو ترى كرمها كلي قلبي إن يستجد لي جاءني كالجعل ما عرفت السوق لسنا نبنات مرك الله إذا جعلنا مركورته شمس أي إديشة وحي عشان كنت أهان إنه المعلومات كوكوسة سنة بورك إن كنت رسالها وإديشة في السوشيال iyo maaragtay golobka Soomaali diaspora sabtana kan golaheeda labadaba waa ku jira inkastoo maaragtay sida ay sheegtay xoog badan u saaran yahay dhanka dumarka ujeedaduna ma aha kaliya dumar ha noolaado ee waxa waaye in aan daransanahay sidan maanta markii la furayo programkan aan idin sheegay dumarku markay noqoto xagga hooyada dhaqan kasta iyo waddan kasta meel gabar Soomaaliyeed oo ka sharaf badan ma laha kaliya waxa la soo haystaa waa geedka hoostiisa oo weli rabtaan raguna keligii fadhidaan
annagu aan shaaha keeno annana waan diidana waxaa la naxiska alla nawada siiyey marka dhib kale ma jiro intaa marka aan ka tago anaa waqti idinka dhuminayna waxaan rabaa inaan wax yar idiin sharaxo aniga nin araweelo yeeskalkaalisa waan ahay xaquuqul insaanka waan u doodaa waana bartay turjubaan waan ahay waddanka aan deganahay bulshadayda waa ka mid ahay waxaa la dhahaa madaxa soo jeeda iyo midisaa waliba lagama sabro marka ama meel ka maqnaa oo meel ka muuqaa la yiri marka inaana joogin inaan joogo waxa kama dhexeeya horta taasi waa alxamdu shukri rabbilcaalamiin laakiin waxaa jira wax cusub oo aan lagu aqoon jirin aniga soomaalida intaqaana in lagu aqoon jirin waxa waaye culimada heesaha heeskaan culiyey miraheeda iyo laxankeeda ana iskale codka waxaa saartay faadumo iimaan muusigana waxaa saaray cabdirashiid xamari oo isla ku sugan faadumo iimaanna london ayay ku sugan tahay london baa lagu tegay farayarana farsamadu leeyahay heestii codkii inuu shugii inuu meel wada saaro marka shan waxbaa isugu tegay waxaan rabaa intaan heesta idiin daarin haddaaya hal beyd baad ka maqasheen markii kow la furayo oo la sharaxaya caraweena sababtaan u sidano laakiin marka waxaa laga yaabaa inaad istahday hees caraweelana way samaysteen laakiin ay idin dhamaystir heesada inta aan idin daarin idin sharaxo inta aan heesta sharaxaadeeda gelin waxaa hubaal ah oo qof walba oo damiir leh ee dareensan tahay ee aragtaa soomaali haddaan nahay in aan boqolaal u kala baxna boqolaalkii far ka mid ah waxay tahay far heegan ah rag iyo dumarba leh u heelan horumarka waddanka horumarka ummadda raba inay waqtigooda huraan sagaalkii kale baa muddo meel ka qabsanaya halkii far mid alaasha qaliila mid maaragtay jidka wax u dhigta mid diin ku qabsada mid dadnimo ku qabsada mid maaragtay wax radiyumeynad taas waxa aniga itusaloon ahaan dareenkayga in ay xoogaa hawshii la gaari lahaa enerjigii tamartii geli lahaa ay ku kala nusqaantanto inta aad dadkan la dagaalaysid inta aad wax u sharaxis leedahay marka waxaan rabaa damiirkeenna annaga intuu nool yahay inta kale dameerka uu ka dhinta ma dhahaayo sababtoo damiirka hadduu dhinto u dhamaada wixii dhinta waa la duuyaa soo maaha damiirku uu ka hurdaa baan leeyahay inaan kicinaan u baahanahay inta aan ka kicinayno inta damiirka lehi ha ku mashquulinka damiirkiisa hurdo ama tan damiirkeeda hurdo marka aan ka soconno heesku marka miraheedu waxaa waaye isu hiiga adigu micnaha heestaa la yidhaahdaa isu hiiga shaksi walbo oo dareen leh bay la hadlaysa oy leedahay cudur adiga ha qaadanin codad ha xibaaranin marka haddaan ayada idin sharaxo marka heesta marka ugu horeysa horiskeeda waxa waaye hamigeena iyo hiigsigeena aan waa hubaa haleeshooda hamiga iyo hiigsiga aan leenahay gaaridooda allahu aclam waxaan loo shaqayn laga gaaro laakiin habkii loo aadi lahaa loo abaari lahaa ani waa ogahay haybad aan hantinaa himilo noo horseedayo hindisa soo hooraya caraweelo noo hibeeyey intii yarada hadaaya dhegeysateynay ahayd waayo showsa caraweelo ayaa hindisay oo keentay magaca caraweelo inaan qaadano sidaas daraadeed baa marka qaybta u siiya taas beydka ku xiga sidoo ka boodayaa maadaama aan dib ugu furay waxaa la yidhaahdaa ama ay leedahay hinaayo waa mid uur ku taalo hurri iyo hulaaq kuu horseede eh heegayaysa kuu noqonin eh hohay isu hiilaado hinaayo haddaadan aqoonin waan sharaxay hinaayo waa mid uur ku taalo iyo hinaayo waa isku halxabo uur ku taalo adiga haddaad isgeliso oo dadkan kula dagaalaya aad caloosha cudur ugu qaado iyo guri lakaaga fadaka adiga ku taalaa shaqadaada sama qabsatid marka hasgelin ka soco beydka ku xiga waxay leedahay hawdulhamag hayaan ma daayo hilaac baxaayaad u tahay hamuuntiriusa kaa helin
هاي سهيل هذا هو كلها متغني هو تلهمك waxaa loo isticmaalaa waxa maaragtay noocyo badan laakiin waa magac jira ayayaalka duula ee marka dalka daata ku degta ee dusha ka saarana la yidhaaho tilhama markii baadiyaha la jooga ama dadku shidan yahana kusoo daabta ee ku dhinta ayaa la yidhaaho tilhama waa baalaleyda yaryar ee nalka iftiinka markuu u baxa meesha ku taagan marka su-aasha waxay tahay adigu waxaad noqon doontaa dabkii markay kusoo dhacaan ay ku dhimanayeen waxaad noqon doontaa nalkii ay dul saaraanayeen waa mid adiga kuu taala adiga marka waxaan leeyahay tilhama hayaan ma daayo hilaac baxa ayaa u tahay hohay isu heeli adigu waayo kaa dhigan nalkay ku dul saaraan qaybta ku xigto hanaayo ha u hibaynin haadayay hadaadin uga hadaaf oo ducayn isaga hibee hohay isu heeli adigu hanaayo ayaa soo maqalna hadaaye oo ahayd maaragtay macno kale hadda waa hinaaye hadaaye hadda waa hanaayona waxay la macno tahay eeday sababtoo ah heesaha markii la sameynaya xarfraaxa kaa rabaa ereyga iska soo qaadan kartid marka erey u dhigma waa in heshaa ereyga aad meesha uga baahnayd hanaayo iyo eedeyn waa isla meesha marka hanaayo ha u hibeynin macnaha waxay tahay qofkan ha eedeynin waayo dhibka uu geystay iyo adiga iyo laku mashquulinin ya hadaadin uga hadaaf hadaadin waxaa layidhaha quusasho iyo ka calool goosasho marka ka quuso qofkanoo iska hadaaf hadaafna haddii waa garanaysaa qof luudaysaa hadaafta socod xoog lama lihid waa niyad jabtay marka isaga dhaqaaq oo isu hiila adigu midda ugu dambaysana waxaa waa eebow hashaar iyo heemaan hidaayadeena ka yeel heeganaan nahay heelanaanta ha nagu hogeynin hashaar iyo heemaan labaduba waxay noqonaysaa wanaag iyo qurux inta jirta oo dhan oo laysugu geeyay labada ereg heesaha ereyada waxaan u fashay waxay tahay afkii hooyana waa laga tegay qaamusyada inaad aadaan ma xasuusan kartaan hadda waxaan shaqaxayeen heestaan rabaa inaa idiin daaro kadibna aan kursigaa fadhiista insha allah waxaa layska soo noqo waxaa waqsiinaa hadda witi ugu dambeynta isu soo noqon doonaa sababtoo ah waxaan waaba la sameeyey boqoradan way soo isku soo xirtay magaalooyinay ka shaqaysiisay wadamayn laga keentay marka xagee usii socon doontaa hadhowti waa la dhowyaado soo ma aha marka hadhowti gadaal baa uga soo noqon doonaa taas Hinti sa sooraya
هوت الهما هيا المدى هيا المدى هلا 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 بحر يا تتهي هوت الهما هيا المدى هيا المدى هلا 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 بحر يا تتهي هنايا هو هيباني waxaynu samaynaynaa ciddii su-aalo qabta intaynaa barnaamijka soo gabagabeeyey ciddii su-aal qabta ee ama u qabta dadka maanta halkan fursadda u helay in abaalmarinta lagu guddoonsiiyo ama qabanqabayayaasha u qabta su-aalahooda soo geli karaan martida sharaf kale maanta halkan filmka u yeeshay in la guddoonsiiyo abaalmarinta iyaga laftigooda haddii ay wax ku dari karaan intii hore ku darayaan dhammaantii soo dhawaada cali ayaa dhiibaya mikrofoonka. السلام عليكم ورحمة الله. أنا سؤال ما قبل لكن حوالي وحنا طلع كومنتار. سعيد في سعيد في الويست من أنا وأنا قاعد كان. سعيد واجي هدي وقال أنا قاعد كان أنا وأنا أنا قاعد كان. سألت ما شيء. أنا ما حكيت صباح كلية علمية مودرن طليانية. وأنا طلياني بجوي. سمعت مقولة قفوة وحنا وقرب بضم اللي هو الجلاد ما يخطط. لكن من الوحيد اللي في مجال اليابان يعني كنت يقول قرب سنة الله وصدق الموضوع يقول على الجبل يوصل. قرب كان كنت يقول لكن من المكاسب اللي يمكن يسمعش وحين من سنة يعني علينا نقول زمان يمكن ماشي هو قرب بضم مرعى نحس يعني مرعى وصل هذا يبقى كذي إلى ذلك جبران ذاته سك استخدام له أرض بعدين ده واحد بعدين سوي جبران ذاته
meeshii waalidkii gabadha iga hormartay xanaaq aniga waxaan dhimanaayo kaa hormartay meeshii laga qaato dhiigu ka imaanayo dadka igu horreeyay ee gabadha igu kaasoo ahaa ninkii khatarta ahaay oo afrigada lagu diro waa ka soo gudbay waxaan imid magaalo kale ee gabadha ay ka taliso ama sarkaala lii jiray gudoomiye degmo gabadha ka ahayd waxaa yidhi gabadhaas hoos tag maniga anoo arkay ninkii loo sarkaal siman gabadha hoos tagayaa intii lagu maslaxay gabadhaas hoos tag waa tegay xafiiskii gabadhii waa salaamay waa gudoomiye degmo waa talisa dagaal ahayd waxaan damacayaan hawsheeda iska wato ayadaba aan tixgelin oo waxba ka dhigin waa la ogaa waxay dhacay jab iyo hooga meeshaas kala kulmo 24 maalmood aan joogay bacda la soo gudbay gabadha ay soo heysay waa jabka gabadha ay soo waxaan soo dhaafay akademiyada intaan joogay qofka markuu jaamacadda 2 sano oo horeysa dhiganayo waxa jaamacadda dhan beesha liha waa la qaataa gabadha waxay baranaysay waxa la yiraahdo telefishin aan waxaan baranaysay gaarsiin يعني وقت ثاني واحد قيل بدن والله يجي بارك انت فريسته اي واحد يجلسها وكان كوارشا اما تبي بيان تكون تفيش كتابه ما حد حاول خلاص شكرا حتى يجي ما يقول اسال هذه هذا بارك فريسته تكسي مره بابورا مره باي بوند بونتا هذا اسمه هاي يسوي ودي كان دلما كان جوجو عن كاي تجوان يوضع الخميات شيخ وحنوي معك وحفظ الشيء مربع انت صفرست وحي شيء واحد الله واحد من آدم شيكل معقول هيك تحط طلع أفضل الجنوب الشقيق وبرني كله كبرني قد بدو غير أنا والله بدأ صوت الإسواح كل شيء إسواح معقول هيك يعني ناس أفضل سفلة دقيقة أساس في أي سنة فيها فكان شيء سنة شيء سنة markii gabadha waxa weey sharci waa soo wanaagsanaa waxa deeqay leeyahay maxawaa waxaan ku sheegay markii lixdood joogo waxa soo sheegay waxa tagaan ku bineey waxa lagu hadlaa ummadaha waxay Soomaaliya waa qolada ugu fiican inkastoo la caayay telefishinka laga caayay waa qolada ugu fiican maxaa jiray waxay arab waa ku imaanaya waxa u diisaa naagta ku keenaya waxa u diisaa wiilku ku keenaya waxa u diisaa gabadhiisa ku keenaya waxa u diisaa waa isla hal shay gabadha Soomaaliya ama nin Soomaaliya ku yimaado waxa u diidaa ana saddexaad taas waa ku amaaniyeen marka labaad wada hadda aad ka sheekeynayso shan iyaal ay haysataa aad ma haysto wala ma haysto adag haysto waan shaqaystaa waa fiicanta shaqi aadaad inay xanaanaysaa waxa ku fiicanta gabdhaha Soomaaliyeed wax ka wanaagsan oo Allah uu ku jiraa ما شاء الله تبارك الله waxaan laba garan maayo ma sha Allah tabaaraka Allah waa runtiisa baabaraya ana waqti yaa sheegay waxaan aad ugu bahal celinayaa guriga haweenka oo igu shaqay inaan maanta barnaamijka daadiyo aad baad mahadsantihiin guriga haweenka loo kala qaadanayo sidoo xushmada leh aad igu sharafteen maanta inaan barnaamijka daadiyo shaqadii maanta aniga halkaas ku dhamaatay martida sharafta leh marka aan salaamayaa aad loo mahadsantihiin martida kale ee sharafta leh iyo isada leh ee maanta iyagu nasiibka u yeelay abaalmarinta lagu siiyo iyagana aad baan u salaamaya laguna mahad celinayaa waxay noqon doontaa insha Allah wax sii socda luul baan u dhiibayaa oo barnaamijka gabagabayn doonta inooga sheegi doonta sida uu sii socon doona aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaan maayo laakiin waa la qasbay in la kala dhamaado barnaamijka sida uu sii socon doonaa shan sano ugu horeysa aad iyo aad bay u mahadsan tahay adiga way u mahadsan tahay badhahay sababto way fadhidaa wayna nooshahay ayadaa marka waa mahadsan tahay walaashayga caliso aniga hadda meesha ay aragta waxaa laga yaabaa dadka u muuqda inays ahaa qofkan ayadaaba wax dhan mastarkeedii ahaa
laakiin beentaha saddex isbuuc facebookgeeda xataa waa layga mamnuuca inay waxay samaynaysa aana ogaan darteed dadkoo dhanna waxaa lagu yiri nin arabel uma sheegi kartiin waxaan samaynayo aniga waa lagu dhaadiyo waxaa la yidhi haddii xataa lagugu tagaray qabsoon sharsi ay leedahay xaalin hore alla isoo waxaa lagu yiri wix lagaa qarna inta lagu sheegaysa haddii aad usoo qaadato adoo labisad meesha hadii habeen horaa la ii sheegay qaacidadii la isiiya ku socda hoola qabanaya markaas askari waxa ah nadiif oo wixii loo dira qaba yaqaana shamsa hadda noo bilowda laakiin ujeedka laga dambeeyaa wuxuu yahay waxa waaye barnaamij dhortay danaagu ku dhortay shamsa carraweelaa noo aas-aastay laakiin ujeedkiisa wuxuu noqon doonaa waqooyiga yurub 5 wadanaa nahay waa denmark waa sweden waa finland waa iceland iyo norway oo aniga aan ka imid wareegtuu noqon doonaa weli aata baktiyo nasiib ah oo aanu dhahin hebelaa loo naxariistay wadan hebelaa la hormara iyo waxa waaye baktiyo nasiibaa lagu bixi doonaa waxaa loo samayn doonaa guddigaasna 5taas wadano ka imaan doona rag iyo dumaro ka koobnaan doona saan idiin sheega hornaantiiba carraweelada ujeedkeedu waa horusocod iyo midnimo keliya gabadhii wax garan weysay iyo ninkii wax garan waaye u bakarbaash ah lala aadaya laakiin xamiyaha waa loo diida masaana ma laga taabanaayo labada meeloo bini aadamka ugu jirecsan waayo soomaalidu waxay dhahaan oo ulaa laba xamiyooda haddana madow meesha ugu jirecsan waa diyaadi ka taata dhulka seexanaysi dumarka waa sidoo kale naas ku xaniinuhu la mid yahay wax ka jirecsan ilahay awoodda jirkeeda kagama yaalaan jiro hadday kaa gaarto waa sida xusulka adag uga soo derbiga oo ku dhamaatay marka hadda raginimadu waa hoogo kale ah iyo adeegsado marka saasoo lagu socda insha allahu tacaala saasay noqon doontaa waxaan rabaa marka mahad celin guud inaan soo jeediyo gaar ahaaneed aan ku bilaabo safari shop meesha aad joogno dhaqaalaha ku baxay safari shop aad bixisay aad bixiya haddayna bixin lahayn annaga awoodeeda ma lahaaneen marka maxamuud aad buu u mahadsan yahay aad baad ugu mahadsan tahay maxamuud waxaa kaleeto oo si gaar ah hadaayad afka waa lagu dhuftay magaaladana waxa isku dhex wadno dad badan baa ka mas-uul ah xildhibaan cabdirashiid baa ugu horeeya cabdulaahi iyo aayad iyo cabdulaahi oo gurigooda anaga baawura ku nimid baawurkisa usii socda gurigooda ka dhacna horta marka hore intaa nala soo siiyey gurigooda kusoo labisana kadib baa meeshaan nimid marka markana ahayd makaranta taasna waa mahad ilaahay waxaa meesha ku siideen qadar axmed xasan waxa waaye farshaxanka quruxda badan ee aad meelaha ka aragtaan ee banaanka loogu dhegana sawirada ku gareyno loo kalmi sida u ekaaday disaynka asiga iskale marka aad iyo aad u mahadsan yahay waxaa ugu dambeyn aan anigoo soo gaabinayna waa haddii ii fasaxa insha allah mikrofoonka anaa haysta weli aamina cabdiyaan rabaa meeshan halkaa maanta dambiyaa noola soo dhigaya intaa noola soo dhigayay saxaabadu markay si dhammaana ayaanba waxba lasoo buuxinayay marka aamina khayr allaha siiyo aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay waxaa kaleeto music meeshaan noo fadhiyo oo heesana noo kala hagaayay fanaankeedii baa xagga fadhiya axmed aad baa ugu mahadsan tahay waxa waaye gacmahooda jirbay wax ku qabtaan farina kaligeed foolma dhaqdo soomaalaay aan iskaashana insha allahu tacaala ugu dambeynta waxaan u dhiibayaa shamso ayadana aragta waxa dhan musbaarka isku dejinaya ahayd musbaar baa hadda ka hor hadlay baa la yiri maxay bolis baa garaacaya moogta marka wuxuu yiri guriyey haddaad markay kugu jira saas ima garaacdeen marka soomaaliya haddaan isku jirin saas isuma digeeli intaa waa maqaliya doysanayna markii heesta la daaro qof walba waa fasax markaaseeto waa dhaqaaqa kala kolay aftahan marku kaa hormaro dayassi laga sheegayo hadalka leesasoo gaaleertahay mogtahay haddii kale meesha waa lagu fashilmaya
lulu aftahamay maasha allah boqoradeena waa noogu dambeynaysaa boqorad raxmo waxaan rabaa inaan shout out u sameeyo saciid aadan waa my best friend aniga sidaas ka gaashnaa maalin hore anoo la hadlaa wuxuu lahaa haye bacabta waxaan ku dhahay kelmadaas bacabta waa iska hilmaamada marmarka qaarkood wuxuu dhahaa adiga yacni soomaalika aad mataqaan baraa waa ka imaatay sheeko ii sheeg sheekadaas waa inaa idinla qaybsado wuxuu dhahay wiil oo rarxamar ah oo afxamari ku hadlo ee adi sidee tahay ma fiican tahay waxaas guri ka sokore ayaa dibadda loo diriyo naasiib siikaalitimow asigoo hadalkayga ugu juugsiina ma tahay waxaa ma hadli kartid wuxuu yidhi wiilkii dibadda aaday ingiriisku ahaa meesha finland ha oo bacdeen aabihiis oo salaad dukana xamar joogo oo teleefonka soo wacay oday marka salaada ku jiray waxaa sabaa wiilkii hadal waa weyn ku hadlaay waan hayaasa leeyahay anaga waa fiicanayo odaygii mee aan la hadlay waxaas yidhi mogtahay aabii waaya waxa bbc degdemiya sidaa si fiican oo sii sheegaye sheekadan waa la sheegaanaya yaa loo qaadanaya in dad la dagaalsan ninkaa reer shingaani oo ah aabihi soo rabsaaday hooyarino isugu wareegaya nawoga cajalada soo duubay odayga salaadii ku jira dhalinyarada cajaladii geliyay akhyaarta waa iska warmo waxaa kuwaa sidee odayga isaa kula iga damiya no ماذا جاء هذا البيبي سيدا من الصلاة المجرية أبو بيبي سماها أحمد يواج الشباب في بيبي سيدا بطور waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo makarfoon waa boodaa marmarka qaar waxaan arkayaa isagoo inaga sii baxaya cabdishakuur k b b oo ka socda tv-ga qaranka ee soomaaliya isaga iyo tv-ga qaranka iyo sahra iyo cabdishakuur aad u mahadsan yihiin intaasaan kusoo noqday kama dambeyntii magaca ugu weyn ilaahay waa iska leh subxaana watacaala intaas ka sukow boqoradeeda raxmo salaad halmarka raxmo waa hooyo caruur badan korisa waxbarasho baratay ummadda soomaaliyeedna meel kasta soomaalinimo iyo walaaltinimo kusoo caawisa meel kasta soomaalinimo looga baahan yahay raxmo xataa hadday jirintaa kama baaqato barnaamijkan maanta lama hagaagin raxmo la-aanteed raxmo boqolkiiba boqol waa ku mahad celinayna waxaan rabaa ku darsan hadday waa ka dhawaajisay ururka dhimirka ee tusmo oo doctoresa faaduusha jimcaale ee loo aasaastay hadda laakiin gabar kale ay madax ka tahay raxmo waa ku-xigeenka ururka kusoo dhawaada